السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمان أمة الصومالية انتي تقانو انتا يقونين با anigoo leefkan usoo galay inaan ka hadlo nolosheeda dhabta ah. waxaan u malaynaa caawa dad badan oo aniga kasaaya ama aqoon ii leh inay nolosheeda dhabta aysa aqooneen. nolosheeda dhabta aysa aqooneen oo ay kasaayaan inaan ahay gabar Soomaaliyeed FB samaystay, messenger samaystay, iska isticmaasho. xataa dadka dariska ahaan jirnay qaarar badan oo aan isnaqaano ama aan isla hadalnay ama aan isla sheekaysanay oo anyway dhibaato ma lahan. intii ii taqaano inaan ahay aniga sidii igu qoran Saaba bintu Maxamed. sorry aniga Saaba bintu Maxamed miyahay. aniga waxaa ahay gabar waagii weligiisoo qof dhumi jiray. markuu dhumo qofka dad baa helo way korsadaan. markay korsadaan inuu codkayga inaa maqlaysin in kaleeto ma garanayo. aniga marka leefkan soo galaya xataa inuu wax aniga aan qarinaya 21 sano inuu aan rabaa inaan ka hadlo aadeen igu adagta inaan ka hadlo. sorry aad igu adagta inaan ka hadlo. dadaa waxay kasaayeen Saaba bintu Maxamed. ani aabahay magaciisa ma kasaayay, hooyaday magaceeda ma kasaayay, qabiil ma lihi. wiil walaal ma lihi, abaayo ma lihi, eed ma lihi, ayey ma lihi, awow ma lihi. wax aan leeyahay oo maanta qofba wuxuu shaansadaa. qofkan aa ujeedii nafta ay ku jirto indhaha leh alxamdulilah lexdeeda laxataa ma yihiin. laakiin maanta hebelaa gabadhaan dhashay malay dhahaayo hebelaa gabadhaan dhashay ama hebelaa gabadhaan dhalay ma aqaano. qofka isku dhignahnay maanta haddii aan dhaawac noqdo ama aan dhimanayo qof dhiig ishu waayo isku dhiig aan ahayn ma garanayo. 4 sano anigoo jiro hooyaday macaan waaye, aabahay faamiligay gebigood midda kaleeto aan la yaabana waxay tahay
waxaa isoo korsaday family ilaahay khayr asiiyo inta waa ugu mahad celinaa aad iyo aad ugu mahad celinaa waxaa lahay galaas biyo ah qofkii ku siiyaa galaas biyo ah qofkii maalin ku siiyaa dadku wuu kaaga duwan yahay galaas biyo qofkii maalin ku siiyaa tan labaad qofkii kusoo korsadaana sidoo kaleeto ama waxaa ku baro ama ku bareen ama ha ku dilo ama ha ku canaado ama ku rafaadiyo waa qof kusoo korsaday inkastoo hadda aan isla joogin dadkii soo korsadaani laakiin meelo kala dheerdheerna aan kala degnayn koley ani waa laysoo korsaday nolosheeda waa ogahay ilaa markaa yaraa laakiin aabbahe magaciisa makasaayay qofkii soo helay oo isoo wato waa xasuustaa waxaan xasuustaa qofka la ii keenay markii laysoo waday qofkii korsada xasuustaa maanta ma alxamdulilah horta alshukrilah qofkii qur-aanka rabbiga ilaahay soo dejiyey dhameeyey maanta ha ku shukriya kula xamdiyo anigu dugsiyaasha intaa istaago aan qur-aanka ka dhagaysan jiray sidaan u barto maqal aa ugu barto tan labaad dadka ciyaalka markay qorqorayaan ama iskuulka wax loogu soo dhigo waa fiirsan jiray because ani weliga iskuul intaa galo uniform qaato waxba maana baranin dugsi intaa galana kutub aan qaatana qur-aan maana baranin saasay tahayna salaadeedu waa tukadaa alxamdulilah inta salaada ku tukanaya qur-aankaas waa kasaa tan iigu yaab gabdhood waxay tahay ani maanta soo waa weynaaday qof weyn aan noqday waxaa u baahanahay hooyo waxaa u baahanahay aabbo waxaa u baahanahay beri ilmaha dhali doono qof ayay u noqdo qof abrar u noqdo meelay kasoo jeedaan waxa hadda dhalay iyo wixii aan dhali doonaba anyway markii waagii maxaakiinta intaysa dhicin waagii maxaakiinta ayaa maamo sida anigaa xasuusto aniga waxaa ku dhashay Yemen waxaa soo waday aabahee saa jeclahay hooyaday in aabahee inay isku dhaceena umaleynaa markaas 4 sano camal aa jiraa adiga 4 sano camal 3 sano camal 4 sano camal adiga wax xasuustaa laakiin wax ma xasuustay waxay soo watay aabahee waxaa xasuustaa inaan meel doona oo bad aan soo marnay oo meel gobol camal aan kusoo degnay marka ilaahay kuma san darnaadee markaa kusoo degnay meesha gobolka ahayd waxaa ogahay in maamona maahan naag qof caadi ah oo dadka hadda dadka macnaha maamooyinka caadiga ah oo laba dhalka ah oo wiil iyo gabar u joogo in la ii dhiibay ee ila soo tagtay markii ila soo tagtay ee ila imaaday xamar aniga aabbahay xamar joogo ma arkin bakaaray degneed maamadaas wiil iyo gabar haystaa maamada wiil iyo gabar haystaa bilis yiraahdiya hadaad taqaanin hadday maqlayso hooyaday ay sheegto haddaad tahay edadii aabahee qabo horta cideeda familigayga aniga astaamo aan leeyahay qof walbana astaamuu leeyahay astaamihiisa uu soo sheegan karaa aniga qof walba oo family oo qofka maqan yahay inuu soo sheegan karo waxay soo sheegan karo qofkii dhiigayga ah qofkaas waa dareemi karaa anigaba tan labaad maamadaas wiil gabar joogo waxay degneed bakaaro meel waxaa jiri jirta la dhihi jiray madax geelka ani ma xasuusto madax geelka ahayd laakiin meeshaas waxaa lagu gadi jiray